kulanti waan dhammaan daawadayaal waa barnaamijkeena akhbaaraadka caalamka iyo wargeyska maalinlaha Jubba. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dowladaha China iyo Ruushka ayaa wada qorshe ay ku doonayaan inay ku qiimo dhimaan dollarka Mareykanka. Intaanu barnaamijku u gudagelin, fadlan noo faafi barnaamijka adigoo isla markaana share garanaya barnaamijkeena. Waad mahadsantahay walaal. sideetankii sano ugu dambeysay dollarka Mareykanka waxa uu ahaa lacagta ugu adag ee caalamka, taasoo siisay Mareykanka awood xagga dhaqaalaha taasoo ay ku awoodaan inay ku dumiyaan dhaqaalaha waddan walba oo ay doonayaan hal habeen gudahood. Mareykanka ayaa dollarka dartiis uga awood sheegtay waddamo waaweyn oo ay ka mid yihiin China iyo Ruushka, laakiin China iyo Ruushka ayaa wada qorshe heer sare ah oo ay ku doonayaan inay ku qiimo tiraan dollarka Mareykanka. haddaan dib u fiirino 10kii sano ugu dambeysay waxaad fahmaysaa in qorshahoodu uu meel fiican marayo, waayo 10kii sano ugu dambeysay dollarka Mareykanka waxa uu lumiyay awoodda xagga lacagaha caalamka 20%. haddaba su'aasha ayaa ah waa maxay qorshaha ay China iyo Ruushka ay ku doonayaan inay ku qiimo tiraan dollarka Mareykanka? intaan u gudagelino qorshaha China iyo Ruushka, bal aan dib ugu laabano taariikhda dollarka iyo sida uu ku helay awoodda uu ku haysto dhaqaalaha caalamka. dowladda Mareykanka ayaa soo saartay qorshe ay ku doonaysay inay kor u qaado qiimaha dollarka, ayaa soo bandhigtay qorshe ah in halkii garaam oo dahab ah uu la qiimo yahay $35, taasoo u sahashay waddamada caalamka in ay is aaminaan xagga ganacsiga ayagoo isticmaalaya dollarka halkii markii hore ay ka isticmaali jireen dahabka. balse 1971 madaxweynihii markaasi xilliga hayay Richard Nixon ayaa soo xiray u beddelashada dahabka dollar, taasoo u sahlaysay waddamada caalamka inay wada ganacsadaan. balse taasi ma aysan joojin in waddamada caalamka ay iska dhaafaan isticmaalka dollarka. sabab waayo dollarka waxa uu ahaa lacagta keliya aad ku iibsan karto shidaalka Saudi Arabia, sababtoo ah 1945 madaxweynihii Mareykanka xilligaasi Franklin Roosevelt ayaa heshiis la saxiixday dowladda Saudi Arabia. heshiiskaas oo ahaa in Mareykanku uu difaaci doono Sacuudiya, halka Sacuudiya ay shidaalkooda ku iibiyaan lacagta dollarka keliya, taasoo awood aan caadi ahayn siisay dollarka maadaama waddamada caalamka ay u baahnaayeen shidaalka Saudi Arabia. maadaama waddamada caalamka ay u baahan yihiin dollar si ay u iibsadaan shidaalka, taasoo lagu kala iibsado dollarka Mareykanka, ayaa keentay in China oo ka xanaaqsan taageeridda Mareykanka siiyo jasiiradda Taiwan iyo Ruushka oo ah waddanka ugu cunaqabateynta badan adduunka, iyo shirkadaha Ruushka oo laga saaray Swift Bank, bangiga fududeeya ee ganacsiga adduunka, ayaa qorsheynaya in ay qiimo tiraan dollarka Mareykanka. xeerka koowaad ee siyaasadda caalamka in waddankaagu leeyahay waxa loo yaqaano leverage. aanu ku bilaabnay qorshaha Ruushka. Ruushka ayaa ka mid ah waddamada ugu soo saarka badan shidaalka caalamka, taasoo siinaysa leverage. waddamada Saudi Arabia iyo Qatar ayaa shidaalkooda ku iibiya dollarka. sanadkan Ruushka ayaa go'aansaday in waddamada reer galbeedka oo cadowga ku ah Ruushka uu kaga iibiyo shidaalkiisa lacagta waddanka Ruushka ee loo yaqaano ruble, taasoo ku qasabtay waddamada reer galbeedka oo ku tiirsan shidaalka Ruushka iyo weliba iyagoo nacab siyaasadda Putin in ay soo iibsadaan lacagta waddanka Ruushka si ay u helaan shidaalka Ruushka. intaasi kuma ekee, weliba waxaa ku qasbanaatay in ay lacagtaasi dhigaan bangiga dhexe ee Ruushka. taasi waxay ahayd istaraatiijiyad aad u heer sareyso. qorshahan ayaa si weyn u caawiyey qiimaha lacagta Ruushka, taasoo gacan weyn ka geysatay in dhaqaalaha Ruushka kor u soo kaco. aanu u galno qorshaha koowaad ee China ayaa iyaduna leverage ku haysato dhanka ganacsiga. tusaale, barnaamijka China ee loo yaqaano Belt and Road Initiatives waxaa lagu qiyaasaa in ay ku kacday adduun lacageed oo gaaraya $3 trilyan oo dollarka Mareykanka. barnaamijka Belt and Road Initiatives taasoo ay ku jiraan waddamo badan oo ka tirsan qaaradaha Asia, Africa, Latin America. China ayaa waddamadani siisa deen aad u fara badan. waxaa lagu qiyaasaa lacagta ay siisay waddamadaasi ku dhowaad $834 bilyan oo dollarka Mareykanka, waddamadaasi oo gaaraya 165 waddan. qaar ka mid ah waddamadaasi ayaa deymo aad u fara badan ka qaatay China, taasoo ay ku adag tahay in ay iska bixiyaan. waddamadaasi waxaa ka mid ah waddankan jaarkan ah ee Kenya iyo Sri Lanka. haddaba qorshaha China ayaa ah maadaama waddamadani aysan iska bixin karin deyntaasi, China ayaa u samaynayso qiimo dhimis 1% ah, balse waxay ku qasbanaan doonaan in ay lacagtaasi ku bixiyaan lacagta China, taasoo meesha ka saaraysa dollarka Mareykanka. 165 waddamo hadday uga baahdaan China deen waxay isticmaalayaan lacagta China, waxayna ku bixinayaan lacagta China. qorshaha labaad ayaa ah midka ugu muhiimsan, maadaama 165 waddan aan soo sheegnay ay yihiin waddamo faqiir ah. sidee ayay China ku heli kartaa waddamada waaweyn? qorshaha labaad ee China ayaa ah kala beddelashada lacagaha, taasoo ay horey ula galeen dowladda Ruushka. haddaba aan idiin sharaxo waa maxay lacag kala beddelashada waddamada iyo macnaha ay keeni karto. tusaale, haddii China iyo Ruushka heshiiskoodu ahaa $1 milyan in ay kala beddelashaan muddo dhan 5 sano, taasi macnaheedu waa China waxay ka iibinaysaa Ruushka $1 milyan oo u dhiganta lacagta China ee loo yaqaan yuan, halka Ruushka uu sidoo kale ka iibiyo China
1 milyan oo dollar oo u dhiganta rubalka Russia ayagoo markaa u fiirinayo qiimaha lacagahooda iyo qaab heshiisyadooda. Haddaba China ayaa taa u sahlaysa in ganacsatada Ruushka ay China ka iibsadaan waxa ay doonaan ayagoon u baahnayn in lacagtooda ay soo marto SWIFT, maadaama bangiga dhexe ee China ay haystaan lacagta Ruushka. Waxaan filayaa inaad fahantay. haddaadan fahminna please commentiga nagu reeb fakarkaaga. waad mahadsantahay. dhanka kale Saudi Arabia ayaa laga yaabaa inay joojiso ku iibinta shidaalkooda lacagta dollarka. warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Mohammed bin Salman oo raba inuu isticmaalo yuan lacagta China kadib markuu khilaaf soo kala dhexgalay dowladda Saudi Arabia iyo dowladda Mareykanka ma sahlanaan doonto in wadamada ay hal mar wada tuuraan dollarka Mareykanka. haddaba adiga sidee kula tahay fakarkaaga ka dhiibo. waad mahadsantahay. mar labaad aan idin xasuusiyo inaad noo sheer garaysaan barnaamijkeena. anigoo ah Ismaaciil Kulmiye waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiiso leh.